mar kale waxaynu dib u bilaabi doonaa taxanaheennii cyber security-ga hore waxaynu soo qaadanay cashiro ku saabsan hordhaca cyber security. haddaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaagno laba qodob. qodobka koowaadi waa inaynu isla fahanno habka aanu tiim kaytag ahaan wax wadno ama sida aan rabno in dhalinyaro aad wax noola fahantaan. qodobka labaadina waa sharaxaad kooban oo aan ka bixin doono casharada aan ku baran doono taxanaheenna cyber security-ga qaybta labaad ee maalmaha soo socda bilaabi doono haddii aan la idmo. hagaag haddaynu ka bilowno qodobka koowaad ee ah sidee ayaanu tiimkaytag ahaan wax u wadnaa, waa maxay halkaan wax soo gudbinaynay, waa maxay miishinka aan rabno in aanu fulino. horta dhalinyaro annagu marnaba baraha bulshada ee aan wax kusoo gudbino marnaba maana soo gelin inaanu dhalinyarada ku lugoyno, waayo wax faa'iido ah noogu jira ma jirto inaanu qof dhalinyar ah u soo gudbino waxaan anfacayn ama faa'iido lahayn. adduunkana waa nagu ceeb iyo wajahamo, aakhirana allah subxaana wa tacaala waa uuna weydiinayaa waqtigaas aanu ka luminay qofka dhalinyarada. annagu boqolkiiba boqol waxaynu hubnaa inaanu marnaba idin soo gudbinayn wax maalayacni ah oo lugooye ah. haddaba maxaan sidaasi u leenahay? okay, markaan bilaabaynay taxanaha cyber security-ga qaybtiisa hore waxay marar badan dhalinyaraduna soo weydiiyeen practical goormay noo samaynaysaan. waa dhalinyaro annagu waanu awoodnaa inaan idiin soo gudbino muuqaalo yar oo cool ah sida wifi la jabsanayo, tuul yar oo cajiib ah sida loo isticmaalo, waanu idinku dhahno tuulkan waxaa la yidhaahdaa hebel, sidaasna waa loo isticmaalaa. adna aad barato tuulkaas adigoo aan wax aqoon u lahayn qaabka uu shaqeeyo, meelaha uu ka faa'iidaysanayo ee vulnerabilities ah, mana noqonaysid qof ballaarin kara aqoontiisa oo isku day kara inuu wax cusub ku sameeyo tuulkaasi. intaas aymaad ku koobnaan doontaa. balse haddii aad rabto inaad si dhab ah waxaan u barato cyber security waa inaad fahantaa oo barataa konsabtiyo ka ballaaran oo ka muhiimsan sidoo loo isticmaalo tuul. annagu ma rabno inaanu ku tusno sida loo isticmaalo tuul oo keliya, balse waxaan rabnay inaan iisoo gudbinno konsabtiyada aad sida dhabta ah ugu baahan tihiin inaad barataan. waxyaabahaas hoose inaad ku mashquushaana wax macno leh kuma samaynayaan. annaguna waan ognahay inaysan wax macnaha kuu samaynayn, sidaas darteed baanu focuska u saaranaa inaanu beeska ugu hooseeya ka dhisno dhalinta. annagu miishankaan rabno inaanu fulino horena waan ugu sheegnay qaybtii hore. miishankaygu waa inaan idiin furno saaxadda cyber security-ga. miishankaygu waa inaan idiin furno saaxadda cyber security-ga. kaama dhigayno khabiir cyber security ah, balse ilaa intuu cyber security kaaga furmaayo ee beeska uu dhismaayo waanu ku caawinaynaa. mid labaad ayaa iyaduna jirta. war aqoonta cyber security-ga weligaa arki maysid ama anagu maanu arag qof dhahaya jaamacad heblaayo ee uga soo baxay. qof kasta 80% waxa uu ka yaqaanaayay waa inuu isbaray, waa tijaabooyin uu sameeyey. marka annagu waxaanu soo gudbinaynaa kaama dhigayso professional, balse waxaanu ku samaynaynaa in aanu konsabtiyada ugu muhiimsan iyo meel kasta oo basic ah aanu Soomaali kugu soo gudbino. intaas kadib waxaad qaadan doontaa courses kala duwan, waxaad akhrisan doontaa buugaag kala duwan oo inta ugu badan si free ah internetka uga helayso, kuwaas oo khuseeya meelo kala duwan. intaas iyo practiceskooda haddii aad israacsatana meel waad ka gaari kartaa cyber security. marka scope-ka taxanayaasheennu waa inay ku furaan saaxadda cyber security-ga. hadhow hays odhan dhex baa lagaaga tegay, balse basiska markaad barato waxaad u gudbaysaa stepka xiga oo ah in aad adigu wax isbarto. haddii aad u baahan tahay bugaagta ugu fiican iyo courseska ugu fiican waanu idinku hagaynaa. sidoo kale waxaanu xitaa idin samaynay Telegram community aad ku soo gudbin karto afkaarahaaga, kana helayso community kula level ah ama ka sareeya oo ku caawinaya. sidoo kale casharadeenna programming-ka waxaanu samaynay ilaa 9 cashar oo Python ah oo isugu jira projects la dhisayo iyo casharo caadi ah. mar labaad xasuunaada markaan wado ku tilmaamno ee tusaale ku habboon ku soo gudbino adiga laga rabaa inaad wado. tusaale ahaan markaan projectida dhisaynay inta ugu badan waxay ku soo gudbinay Soomaali, waayo sababta ugu weyn ee saas u sameeyay waxay ahayd in fahamkiinu soo dhawaado. haddaba adiga maxaa laga rabaa? adiga wax laga rabaa in aan intaan ku soo gudbinay u qaado next level. aad projectida si ballaariso, isku dayda inaad ku soo darto waxyaabo cusub. marka haddii aad cyber security xiisaynayso ama programming xiisaynayso, adigun baa iswadi kara. Telegram community-gaas ku soo gudbi caqabadaha rabto in lagu xaliyo, keen wax cusub, firfircooni muujiya. okay, qodobkeena koowaadi intaas ayuu ku eegaya dhalinyaro. aad baanu idiin jecelnahay inaad guulaysataan oo wax barataanna waanu jecelnahay. hagaag, qodobkeena labaadi waa waxyaabaha aan ku baran doono taxanaheena cyber security-ga qaybtiisa labaad ee dhawaan inoo bilaabi doona. waxyaabahaas waxaa ka mid noqonaya barashada system security, khaasatan Windows security, maadaama uu yahay mid ka mid ah operating systemska ugu isticmaalka badan. sababta uu muhiimka u yahay inaad barataayna waa in system security-ga aad u baahan karto marka lagu dhaho system ammaankiisa sug ama system develop gare. dad waxba ka aqoon system security qaabka uu yeelo, arrinkaas wuxuu noqonayaa arrin caqabad ku ah oo dhibaato ah. sidoo kale casharada ugu qaadan doona waxaa ka mid ah barashada Linux
taxanaheena qaybtiisa hore waxaan ku soo baranay Ubuntu oo ah nooc ka mid ah Linux balse qaybteena waxaan si faahfaahsan u baran doonaa Kali Linux iyo qaabka loo isticmaalo dabcan in badan oo ka mid ah way yaqaanaan waxa uu yahay Kali Linux sidoo kale casharadaanu qaybtan ku qaadan doono waxa ka mid noqonaya sid upgrade ama dhisida virtual lab kaasi oo ah lab ku haboon inaad ku samayso waxyaabo practice-ka umana baahnid computers badan balse waxaanu isticmaalaynaa waa virtualization dad badan ay arkaysaa oo raba inay tijaabin ku sameeyaan computerkoodii caadiga ah iyagoo aan haysan virtual lab arrinkaasina waa arrin dib kugu noqonaya adiga computerkaagina dhibaato u keeni kara okay waxaan iyagana wax ka baran doonaa phishing antiviruska iyo qaabkay u dhisan yihiin sidoo kale waxaanu baran doonaa qaab dhismeedyada iyo sidoo loo sameeyo trojaniska yacni waxyaabaha ay ka samaysan yihiin iyo sida ay u dhisan yihiin inagu samayn mayno balse waa taqaanaa stepka ku xiga markaad intaas barato cashiradan iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan ayaan ku qaadan doonaa qaybteena labaad la soco ilaa dhammaadka taxanahan uguna yeedh asxaabta jecel cybersecurity-ga mahadsanid